Israel waxay sheegtay maanta inay mowjado duqeymo ay ka fulisay qaybo badan oo ka mid ah gudaha Iiraan iyo sidoo kale magaalada Beirut oo caasimadda dalkaasi Lubnaan ah. Sida wararku ay sheegayaan, Israel ayaa sheegtay maalintii 13aad oo maanta ah oo dagaalka uu soconayo inay bartilmaameedsadeen oo mowjado weerara iyaga oo kaashanaya Maraykanka ay ka fuliyeen gudaha magaalooyin ka tirsan dalka Iiraan. War-saxaafadeed ka soo baxay Israel ayaa lagu sheegay howlgalkan in si gaar ahaaneed loogu bartilmaameedsanayo kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulka dowladda Iiraan. Waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen xarunta daraasaadka dhexe ee hubka nuclearka ee dowladda Iiraan iyo xarumo kale oo militari oo ku yaala koonfur bari magaalada Tehran oo caasimadda dalka Iiraan ah. Waxay sidoo kale sheegeen inay burburiyeen diyaarado dagaal oo ciidamada cirka ee Iiraan ay lahaayeen. Xarunta taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ayaa dhankooda war-saxaafadeed ay soo saareen CENTCOM waxay ku sheegeen inay burburiyeen 3 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dowladda Iiraan. Muuqaal ay soo bandhigeen ayaana muujinaya iyagoo bartilmaameedsanaya saldhigyo militari oo ciidamada Iiraan ay lahaayeen. Muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya in la burburinayo diyaarado dagaal oo Iiraan iyo Ruushkaba ay soo saareen. Si gaar ahaaneed diyaaradda muhiimka ah ee IL-76 oo loogu talagalay in qalabka militari ee dowladda Iiraan ay daabusho ayaa muuqaalkeeda uu ka soo muuqanaya iyada oo lagu burburinayo mid ka mid ah saldhigyada ciidamada cirka ee dowladda Iiraan, gaar ahaana magaalada Ahvaz oo gobolka Khuzestan ka tirsan oo dhacda koonfur galbeed dalkaasi Iiraan. Dhinaca kalena, Israel ayaa shaaca ka qaaday ilaa iyo 5 ruux inay hadda bartilmaameedsanayaan marka laga yimaado dilkii Ayatollah Ali Khamenei. Qoraalkan oo lagu daabacay warbaahinta Al-Carabiya ayaa laga soo xiganaya mas'uuliin ka tirsan Israel. Waxay sheegeen inay hadda baadigoobayaan afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan Maxamed Khalibaf, xogayaha golaha amniga qaranka ee dowladda Iiraan Cali Larajani, Major General Amir Hatimi, taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dowladda Iiraan, iyo Major General Ahmed Fahidi, taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan oo dhowaan la magacaabay kadib markii taliyihii ka horreeyay lagu dilay weerarkii 28kii February. Waxay sidoo kale ay sheegeen inay baadigoobayaan taliyaha xarunta Qaatim al-Anbiya ee dowladda Iiraan General Cali Cabdullaahi. 5taasi ruux ayaa la sheegay inay hadda yihiin liiska dadka Israa'iiliyiinta ay baadigoobayaan tan iyo 28kii February markii ay qaalijiyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Iiraan. Warbaahinta Israel marka waxay hadda leeyihiin maadaama wiilka uu dhalay Ayatollah Ali Khamenei dhaawac uu soo gaaray, inkastoo dowladda Iiraan ay beenisay, waxay sheegeen in dhaawac uu ka soo gaaray dhanka isha bidix. Waxay sheegeen wejigiisa in waxyeello ay soo gaartay, sidoo kalena lug uu ka jabay. Laakiin dowladda Iiraan afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa gebi ahaanba arrimahaasi beeniyey. Sidoo kalena waxay sheegeen xaaladiisa caafimaad inay wanaagsan tahay hogaamiyaha cusub ee dowladda Iiraan. Hadda laakiin marka waxay leeyihiin waxaan baadigoobaynaa 5taasi ruux si aan u beegsanno. Waana markii ugu horreysay oo macluumaadkan la baahiyo, iyadoo Israa'iiliyiinta horey ay u sheegi jireen inta badan xubnaha ay baadigoobayaan, laakiin waa markii ugu horreysay oo macluumaadkan uu soo baxo tan iyo dagaalka markii uu bilowday. Dhanka kale, madaxweynaha dowladda Iiraan ayaa shuruudo adag hordhigay madaxweynaha dowladda Maraykanka si dagaalka loo soo gabagabeeyo. Mas'uud Pezeshkian wuxuu sheegay in joojinta dagaalkaas ay ku xiran tahay in la helo damaanad caalami ah, damaanadaas oo xaqiijinaysa weerarada in gebi ahaanba ay joogsadeen oo Israel iyo Maraykanka aysan dib ugu soo laaban doonin dagaalka. Madaxweynaha Maraykanka ayaa dhankiisa sheegay Washington in dagaalka ay sii wadi doonto, inkastoo uu sheegay Maraykanka inuu horeyba u guulaystay. Qoraal lagu daabacay barta X ayaa Mas'uud Pezeshkian waxa uu ku sheegay inuu ku dalbanayo dalkiisa in la siiyo magdhow, isaga oo sheegay in xuquuqda sharciyeysan ee Iiraan inay tahay in la aqoonsado. Si kastaba ma uusan cadeynin waxa uu la jeedo xuquuqdaas. Dhanka kalena, madaxweyne Trump ayaa sheegay in Maraykanka guul uu ka gaaray dagaalka, sidoo kalena uu doonayo in la soo gabagabeeyo. Madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin ayaa goordhow soo saaray qoraal uu dhinacyada dagaalamaya ugu baaqayo dagaalka in la soo gabagabeeyo. Trump wuxuu yidhi ma rabno inaan si degdega uga baxno dagaalka, laakiin waa inaan dhammaynaa howlgalka. Shalayna wuxuu yidhi meel kale oo aan Iiraan ka bartilmaamaysanayna ma jirto, sidaa daraaddeedna dagaalka in la soo gabagabeeyo aniga ciil kuma qabo. Xarunta taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ee CENTCOMna qoraal ayay soo saareen. Waxay yidhaahdeen ujeeddada militari ama ujeeddada dagaalka waa in la baabi'iyo awoodda dowladda Iiraan ee ay ku fidin karayso ama saameyn ay ku yeelan karto danaha Maraykanka iyo deriska. Sidoo kale waxay sheegeen ujeeddadu inay tahay in howlgalku uusan ku koobnayn keliya difaac ka dhana khataraha dhanka Iiraan, balse sidoo kale ay doonayaan in nidaamkaasi gebi ahaanba awooddiisa la burburiyo. Halkaas waxaa ka cad aragtiyada generaalada, aragtida madaxweynaha iyo tan sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israel inay kala duwan yihiin. Saacadii la soo dhaafayna Israel waxaa la diiwaan geliyay duqeyntii ugu xooganeed inay ka fulisay gudaha dalka Lubnaan,
israa'il waxay beenaysay inay goobo dad rayida ay leeyihiin ay beegsadeen. taa beddelkeedana waxay sheegeen in iiraan ay beegsanayso goobaha dadka shacabka ee magaalada talaaviib. muuqaalada qaar ee lasoo bandhigayo haddii aanay caqliga macmalka ahayn waxaa halkaasi ka dareemaysaa jug xoogan inay iiraaniyiinta ay gaarsiiyeen israa'il. warka hadda soo kordhayna haddii aan kula wadaago, iiraan ayaa markab laga leeyahay dalka maraykanka la sheegay waxay ku gubtay marinka hormus. markabkaas ayaa isku dayay inuu gebi ahaan ka gudbo marinkan, laakiin iiraan ayaa xaqiijinaysa in amniga marinka weli iyaga ay gacanta ay ku hayaan. waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha allah.